habeennimadii xalay toole qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusay 56 guurada ka soo wareegtay markii xorriyadda madaxbannaanida ay Soomaaliland ka heshay boqortooyadii aanay qorraxdu ka dhici jirin ee Ingiriiska 26 Juun 1960 taasoo ka dhigtay calankaasi inuu noqdo kii ugu horreeyay ee laga taagay ciidda Soomaalidu ay leedahay. munaasabadan xalay ka dhacday madaxtooyada Soomaaliland waxaa ka qayb galay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici gudoomiyaha golaha guurtiga Salebaan Maxamuud Aadan gudoomiyaasha xisbiyada Kulmiye iyo Ucid Injineer Faysal Cali Waraabe iyo sidoo kale Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali wasiir ka tirsan xukuumadda saraakiisha ugu sareysa ciidamada qalabka sida diblomaasiyiin ka socday wadamada caalamka oo ay kamid ahaayeen qunsulka Turkiga u fadhiya Hargeysa iyo wakiilka wadanka Djibouti u fadhiya Somaliland iyo marti sharaf kale oo badan. intii munaasabadu ay socotayna waxaa halkaasi khudbado ka jeediyay dadkii goobjooga ahaa xilligii xorriyadda oo uu kamid ahaa Cusmaan Axmed Xasan Cismaan Indhoole oo ahaa mas'uulkii markaasi la wareegay calankii xorriyadda iyo sidoo kale Maxamuud Aadan Dhari oo isna goobjoog ahaa habeenkii calanka la taagay 26 Juun 1960 markaan soo galayay waa arkayseen oo gacanta leeyahay 56 sannadood horteedna waxaan ahaa nin xoog ah oo maalintii dowladnimada ugu horreysay ee la qaatay mas'uulka loo dhiibay ilaah baan ugu mahadnaqayaa. halkaa xabsiga dhinaciisa oo imika daaro badani oo malcaamad taariikh lihina ay ku jirtay waxaa safnaa 3 qaybood oo Ingiriiskiya oo salaanta bixinayay Allahu Akbar Allahu Akbar isbaana Karol iyo Mrs Karol iyo barbar taagnaa saasaan anana xagga dambe u taagnayno shacabka jumaynay oo aanu heesaynay oo barwaaqada maanta aanu ku heesaynay waxaanu ahay shaqaalihii dhalinyarada ahaa ee gobonimada iyo marba burcaw caradayay marba ceergaabo tagay marba haw tagay yan sida xaqiiqda kamid ahaa taariikh bay ahayd aan marna la ilaawi karin. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Abwaan Yuusuf Shaacir oo ka hadlay marxaladii gobonimadu ay ku bilaabantay iyo wasiirka amuuraha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweynaha Soomaaliland khudbad dheer oo uu jeediyay waxa uu taabtay qodobo kala duwan oo dhammaantoodba ku saabsanaa xorriyadda ay Soomaaliland ka qaadatay Ingiriiska 56 sannadood ka hor iyo marxaladihii ka dambeeyay. Soomaaliland ma ahayn dal toos loo gubaystay sida dalalka Afrika badankooda hase yeeshee waxay ahayd maxkamad ay ilaaliso ama ay maamusho boqortooyadii aan ciidu ka dhici jirin calankeeda ciidu ka dhici jirin halka qaraad iyo hayaan dheer oo loo soo galay xaqiijinta himiladii gobonimada doonka waxay Soomaaliland nasiib u yeelatay inay ku guulaysato qaranimo buuxda isla markaana noqoto dalkii 15aad ee qaaradda Afrika qaadatay madaxbannaanideeda. waxaa hambalyo mudan haliyadii xasiliyay gobonimadeena jibadii iyo Soomaali jacaylkii qulubteena jeexay wuxuu keenay inaynu 5 cisho kadib aynu degdeg ugu biirno dalkii Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysan jiray shuruud la'aan inkastoo uu ahaa ilduuf siyaasadeed oo ina dhaxal siiyay dhibaato badan haddana dhinaca kale waxaa la dafiri karay inuu ahaa go'aan geesinimo leh oo ay qaadan karto oo kaliya ummad gob ah oo garasho dheer leh. mudugii dhex maray labadii dal ee Soomaaliya iyo Soomaaliya wuxuu noqday madhalays aan la mahadin. murti Soomaaliyeed ayaa tiraahdaa taageerow qaraa ka waran wuxuu yiri tukayga tagogay kaga eeg. sidaa darteed waxaan leeyahay shacbiga Soomaaliland soddonkii sano aynu ka mid ahayn dalweynihii Soomaaliya ma jiro wax faa'iido ah haba yaraatee marka la barbar dhigo 25 sano aynu la soo noqonay madaxbannaanideeda waxa inoo kordhay ayaa ka badan 90% iyadoo aynaan helin taageero lixdan iyo aqoonsi caalami toona. Soomaaliland rubuc qarni kama qayb qaadan shirarkii kala duwanaa ee dib u heshiisiinta Soomaaliya marnaba sidoo kale kama mid noqon nidaamka federaalka iyo galaasha ah ee ay ku midoobeen maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya. wada hadalay Soomaaliland iyo Soomaaliya mudane marwey
xukuumadda aan madaxda ka ahay waxay diyaar u tahay ambaqaadka iyo sii wadista hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliya. haddaba si looga gun gaadho wadahadallada labada dal u dhexeeya natiijo wax ku ool ah waxaa ku baaqaya in gogasha la ballaariyo oo dalal isla garteen ay goobjo ka noqdaan. 56 sannadood ka hor habeen Jimcaha oo bishu ay 24 Juun 1960 ayaa wargeyska loo yaqaanay London Gazette ee ka soo bixi jiray magaalada London ee wadanka Ingiriiska waxa uu daabacay warqad ay qortay boqoradii wadanka Ingiriiska oo ay ku sheegaysay maxkamada Ingiriiska ee Somaliland ay madax banaani siin doonaan 26 Juun oo markaasi 2 maalmood ay ka harsanaayeen sida ku xusan nuqul kamid ah wargeyska xilligaasi soo baxay. gabagabada munaasabadii xalay ka dhacday qasriga madaxtooyada Somaliland ayaa waxa ugu dambeyntii lagu soo gabagabeeyay daqiiqadihii calansaarka markii saacadu ay ku taagnay 12 habeen barkii xalay. عبد الشكور دايب محمد هون كيبل TV هرقيسة.